wafdigani uu horkacayay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana magaalada si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle iyo qeybaha bulshada ee kala duwan ka hor wafdiga inta uu soo gaaray magaalada Jowhar waxaa amniga si weyn u xaqiijinayay ciidamada maamulka Hirshabelle iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ku sugnaa inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar iyo xarunta maamulka Hirshabelle kadib madaxweynaha marka uu soo gaaray magaalada Jowhar isla markaana uu ku soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee maamulka Hirshabelle halkaasi oo wasiirka warfaafinta kula hadlay warbaahinta waxaan maanta ku soo dhaweynay garoonka magaalada Jowhar ee dowladda Hirshabelle madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble oo bariyahan safar shaqo waddanka dibadiisa uga maqnay wuxuu safar shaqo ku soo maray dalka Ingiriiska oo soo qayb galay shirki kadib wuxuu safar ku soo maray dalka Andariskana ee Kenya halkaas oo runtii muddo badan oo halkaas kula soo kulmay safaaradaha halkaas ku sugan iyo dowladda Kenya waxaan sidoo kale madaxweynuhu uu muddadan soo joogay oo safar shaqo u joogay magaalada Muqdisho oo maanta aan ku soo dhaweyn magaalada Jowhar waxaan runtii aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntii ay noo muujiyeen iyo taageeradii shacabka reer Jowhar kadib hadalka wasiirka warfaafinta waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed kaasi oo baaq nabadeed u diray walaalaha dirirtu ay ku dhaxmarayso gobolka Hiiraan waxaan shirkeena maanta ku saabsan jaraa'id baaq aan u dirayo beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu ku dhaxmarayso Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan degmada Beledweyne walaalahaas waxaan leeyahay walaalayaal xabadda hala joojiyo baaqaasna la dirayo anoo ku hadlayo magaca dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha inay joojiyaan dirirta halkaa ku dhexmarayso Cabdifataax Axmed Maclow Cabdifataax Zaki Bulsha TV Jowhar